Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal, halkaad nagala socotaan waa kanaalka Timaam. Maanta waxaynu haynaa waa qiso cajiib ah oo xikmad leh. Qisadeena maantana waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Wuxuu si aad ah u jeclaa xaaskiisa. Waxay haysteen 2 carruur ah. Wax kasta uu awoodo wuu siin jiray, balse xaaskiisu marnaba maqsuud kuma ahayn. Inkastoo ninku uusan taajir ahayn, haddana wuxuu la wadaagi jiray wax kasta uu heli karay. Haddii uu soo iibiyo dhar, waxay ku oran jirtay, "Waxaan waa wax liito oo mar hore laga baxay." Ninku waxa uu u dhoola caddayn jiray xaaskiisa, wuxuuna ku oran jiray, "Maalin ayaan taajir noqon doonaa, waxaanan kuu iibin doonaa dhammaan waxyaabaha qaaliga ah aad u baahan tahay." Haweeneydu marnaba telefoonka ma wici jirin ilaa mar ay wax ka codsanayso maahe. Haddii uusan fulin karin codsiga, waxa kaliya ay samayn jirtay waa inay muranto maalmo, marmarna dagaalanto. Galab isagoo shaqadiisii ka soo rawaxay ayuu soo iibiyay 1 kiilo oo hilib ah, isagoo faraxsan oo isla xaaskaaga ka yaabay maanta oo caawa si fiican reerka u casheeyo. Kolkuu gaaray gurigii oo xaaskiisii tusay, ayay xaaskiisii ku jawaabtay, "Haah, nin baad sheeganaysaa oo 1 kiilo hilib ah baad guriga keenaysaa, ma saliid baa taallaa mise wax kaloo lagu daro?" Kadibna bannaanka ayay ku tuurtay hilibkii. Ninkii aad buu u carooday, balse wuu is dejiyay, wuxuuna is yiri, marnaba hoos ha u dhigin jacaylka aad reerkaaga u qabto. Maalin ayuu xanuun badan ka dareemay cagta bidixda, kadibna buro weyn ayaa ka soo baxday. 3 bilood kadib, markii ay aad u weynaatay, xanuunkiina ku batay, ayuu cusbitaal tegay, waxaana laga helay cudurka kansarka. Wuxuu ahaa sabool aan awoodin daryeel caafimaad oo wanaagsan. Inkastoo aad u xanuunsanaa, haddana waxaa isku dayay wax kasta uu awoodo inuu reerkiisa quudiyo. 2 sano kadib, xaaladdiisii way ka sii dartay, waxaana la dhigay cusbitaalka. Lugtii ayaa qalliin lagu sameeyay oo laga jaray, laakiin nasiib darro, waxay ahayd xilli dambe oo fayraskii wuxuu saameeyay jirkiisa oo dhan. Waxa uu u yeeray xaaskiisa si uu ula dardaarmo, wuxuuna ku yiri sida tan: "Xanaanee oo daryeel carruurta, waxaan dareemayaa inaan adduunkan ka socdo. Allah ha idin dhowro." Wuxuu neefsaday tiisii u dambeysay, wuuna geeriyooday. Haweeneydii iyo 2diisii carruur waa ooyeen. Maalmo ayay baroordi ku jireen. 2 bilood kadibna ayay xaaskiisii booqatay, qabrigiisiina way ag fadhiisatay iyadoo leh erayadan: "Jacaylkaygii, wax kasta oo wanaagsan waad ii samaysay. Waxa aad iila dhaqantay si sare, laakiin waxa kaliya aad iga helaysay waxay ahayd muran iyo dagaal joogto ah oo weliba aan dhammaad lahayn. Marnaba ma garowsan muhiimadaada iyo jacaylkaaga ilaa hadda oo aad naga tagtay. Goortii aan aniga noqday qofka laga rabo cuntada, dharka, biilka iyo waxbarashada iyo waxyaabo kale oo badan. Waan xasuustaa goortii aan tuuray kiilada hilibka, laakiin hadda ma hayo xataa nus kiilo meel aan ka helno. Dhammaanteen waan tabaynaa maqnaanshahaaga hadda." Gabadhaydii yarayd oohin ma joojiso, iyadoo i weydiinaysa aabbaheed, waxayna hadal ku soo gabagabaysay, "Allah ha kuu naxariisto." Haddaba waxyaalaha aan qisada ka faa'iideyno waxaa ka mid ah: 1. Had iyo jeer ku qanacsanow oo ka mahadceli wixii lagu siiyo, hadday yar tahay ama weyn tahayba. 2. Jacaylku ma ahan wax badan inaan haysanno, balse waa sida la isula wadaago waxa yar ee la haysto. 3. Kuwa xiriirka idinkala dhexeeya kula hadal markasta hadallo wanaagsan inta ay nool yihiin, sababtoo ah qofna ma garanayo xilliga uu dunidan ka tegayo. 4. Marnaba ha ku ciyaarin dareenka qofku jecel, ha dhaawicin qalbigooda, sababtoo ah hubaashii maalin intaad baraarugto ayaad garan doontaa inaad dayaxa weyday kolkii aad xiddigaha tirinaysay. Waa naga intaas qisadeena maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.